وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمر كلا سود واضح أدي هذا ومهتمين مانت واسبتي أفريل لبعتنك بيش شناد ماي سنة كلا بدأ كون يشان يلا بعتنك مقال كان محربا إن ندي كل وذاقه كيسكي فيدنا ورفيجر العكتي لبعض بقول يكونتون كمليان هيد لقولهم صداي قبل كمينيسوتا dadka ugu badan ee ku eedeysan ay Soomaalida ay ahaayeen ayaa haweeney Soomaaliya la xukumay toddobaadkan kadib markii ay dambigeeda qiratay waxaana lagu amray in ay lacag dib ugu soo celiso dawladda hadaba lacagta ma imisa ayaa lagu xukumay lacagta laga rabana imisa ayay la egtahay sidoo kalena ilaa iyo hadda dadka la xukumay kiiskan kuwa dacwad sugayaasha kuwa sidoo kale dambigooda qirtay iyo kuwa dambiga lagu helay oo aan wali la xukumin ilaa imisa ayay dhan yihiin ayaan rabaa inaan muuqaalkan aan idinku la wadaago balse marka hore soo dhawaada حج مبروك سلام جروب حجك سندك waxay idin haysaa hoteello dowladda xaram Makka iyo Madiina loogana lugayn karo gaadiidka ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah wuxuu jeenta waalidka oo geeriyooday aan awoodin iyo umreynta haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah waxa aan ka caawin doonaa gudashada acmaasha xajka fadlan wac WhatsApp number eber 966592847 mahadsanidin wali ma jeceshay ilmahaaga yar ma doonaysaa inuu ifiyo aakhiraba ku anfaco ma doonaysaa inaad sababtiisa janno ku gasho haddaba haddii aad doonaysa macallin hab online ku soo gaarsiiya meel kastoo dunida ka nooshahay iyo saacad kastoo ay ku tahayba waxaan ku hayaa dugsiga xaafidul qur'aan online kuwaasoo adiga iyo ilmaha yarba ku barbaarinaya muddo aad u kooban ku baray barashada xifdinta quraanka kariimka barashada higaada afka carabiga iyo weliba barashada aasaaska shareecada islaamka oo ugu weyn yahay tafsiirka quraanka kariimka wixii faahfaahin waxaad haatan ka wacaysaa telefoonka shaashada kaaga muuqda bilanteenu waa dugsiga xaafidul qur'aan online كفكر سببت عدو بيرتي وديست جواردا محرنمada jadwalkaaga ma daryeelka qoyskaaga ma madax banaanida ganacsigaaga hadda ka fikir shaqadii ugu dambeysay ee aad qabatay ma dareentay in shaqadaada la ixtiraamay ma heshay wixii aad mudneed ma haysataa xakameyn ku saabsan waqtigaaga iyo dakhligaaga 15 sano ee la soo dhaafay barnaamijyada adeega wadista gaadiidka waxay bedeleen sida dadku u safraan laakiin ma ku shaqeysay adiga darawal anagoo ah hij waxaan aaminsanahay in darawaladu ay yihiin lafdhabarta shirkadda gaadiidka oo aan la takoorin waxaan nahay madal ay leeyihiin darawaliintu kuna dhisan mushaar cadaalad ah daafurnaan iyo guul la wadaago darawaliintu waxay helaan inta badan dakhligooda wax qarashyo qarsoon ama commission aan cadaalad ahayn ma jiro waa waqtigii la heli lahaa shirkad gaadiid wadaag ah oo darawaliintu leeyihiin waayo marka darawaliintu hormaraan bulshaduna way kobcaysaa wado hij adiga iskale waxaan ognahay kiiskii Feeding Our Future ee lacagtii 250 milyan ahayd ee loogu talagalay caruurta in lagu quudiyo xilligii coronavirus-ka uu jiray oo caruurtu iskuulada ay ka joogeen oo guryaha ay wax ku baranayeen dadka ugu badan ee ku lugta leh kiiskaasi musuqmaasuqa oo kii ugu weynaa oo wadanka Mareykanka ka dhacay la leeyahayna waxa ugu badan Soomaali haddaba kiiskan dad ayaa maxkamadda loo soo taagay oo qaarkood dambi lagu helay kuwana loo xukumay laakiin inta badan dadku dambigooda waa ay qirteen marka qofku haddii uu dambigiisa qirto xukunka ayaa laga qafiifinaya haddii uu marqaati fur sameeyo dawladda caawiya ama dacwadoogayaasha iyaduna waa iba kasii wanaagsantahay laakiin qofku haddii uusan marqaati fur sameynin oo uu dambigiisa qirto iyo haddii uu marqaati fur sameeyo labadaba xukunkiisa waa laga qafiifinaya haddaba toddobaadkan waxaa jirtay in haweeney Soomaaliya oo magaceeda la yiraahdo Sahran Nuur oo 63 jir ah in garsoore Nancy Brazel ay ku xukuntay 4 sano oo xabsi ah iyo in ay bixiso lacag gaaraysa ilaa iyo 5 milyan oo dollar ay dib dawladda ugu soo celiso haddaba haweeneydan sanadkii 2023 ayaa Sahran Nuur ay dambigeeda qiratay oo ah isdabamarin lacageed iyo in lacag si qalad ah meel kala duwan ay ugu dirtay marka xukunkeeda waxa uu noqday in 4 sano oo xabsi ah ay gasho isla markaana lacag 5 milyan ah ay dawladda dib ugu soo celiso haddaba Sahran Nuur oo wax ka lahayd company la yiraahdo S&S Catering oo ku yaala Lake Street Minneapolis waxa ay maxkamadda ka hor qiratay in 1.2 milyan oo cunto ah oo ay sheeganayeen in caruur ay siinayeen intii u dhaxaysay
bishii 9aad ee September sanadkii 2020 ilaa iyo bishii 4aad ee sanadkii 2021 in aysan wax yar oo kamid ah tiradaasi ay sheegayeen in ay bixiyeen oo lacagtaasi ama cuntadaasi aysan caruur wada siinin. marka dacwadoogayaashu waxa ay sheegeen in shirkadan ama kambanigan ay wada lahaayeen laba haween ah oo la kala yiraahdo Sahra Nuur iyo sidoo kalena Qamar Xasan oo iyaduna marqaati fur ka sameysay kiiska ugu dambeeyay oo haweeneydii madaxda ka ahayd Feeding Our Future Amy Back iyo Salim Saciid oo isaguna milkiilayaasha maqaayada Safari Restaurant iskala kamid ah ayaa Qamar marqaati fur dadkii sameeyay ay ku jirtay. marka labaduba waxay isla lahaayeen kambanigan la yiraahdo S&S Catering. marka lacag 10 milyan waxa ay ka heleen meelo kale oo cunto bixinaysay oo iyagu ay raashinka u qaybinayeen ay sheeganayeen in goobahaasi cuntada laga bixinayeen inaga ayaa raashinka siinayay. lacag 10 milyan oo dollar ay ka heleen shirkadahaasi kale ama goobahaasi kale ee cuntada lagu bixinay. Feeding Our Future waxay ka heleen lacag 16 milyan oo dollar. marka la isku daro marka 26 milyan oo dollar ayay heleen labadaasi haween ee Qamar iyo Sahra oo shirkadaasi S&S Catering iska lahaa. marka sidaas darteed ayaa waxa ay lacagtaasi ku qaateen iyagoo aan wax cunto sida ay sheeganayeen aan siinin caruurtii loogu talagalay. marka waxa jirtay in Qamar Xasan iyadoo 20kii bishii February ee labaad ee sanadkan markii maxkamadda ay saarnaayeen Amy Back haweeneydii madaxda ka ahayd ururka Feeding Our Future oo lacagahan dadka Soomaalida u qaybiyay iyo Salim Saciid oo milkiilayaasha maqaayada Safari Restaurant kamid ahaa ayaa marqaati fur ay sameysay Qamar Xasan oo kambanigan S&S Catering la yiraahdo ay Sahra Nuur ay isla lahaayeen. marka Qamar waxyaabihii la weydiiyay markii marqaati furka ay sameeynaysay waxa kamid ahaa tiradan aad soo bandhigteen oo ah caruurtan inta laag in cuntadan aad siineyseen wax sax ah miya numberkan ma saxa maya ay ku jawaabtay. waxa la weydiiyay waayahay maxaad u saxiixday waraaqahan oo inay sax yihiin ahaan maxaad ugu saxiixday. markaas waxay tiri xilligaasi si toos ah ma aanan u fikiraynin. waxay sidoo kale tiri waxaan daba soconay lacagta oo kaliya lacagta ayaan ugaarsanayno inagu lacagta ayaan u baahnayn marka tiradan iyo waxyaabahan aan qorayno macna ma aysan noo sameeynin. iyada sidoo kale Qamar waa xukun suge oo xukunkeeda ayay sugaysaa. marka waxa hadda Sahra Nuur oo 4 sano lagu xukumay isla markaana lacag 5 milyan oo dollar inay bixiso lagu amray ay noqonaysaa qofkii saddexaad oo Soomaali ah oo kiiskan Feeding Our Future loo xukumo. iyada maxkamad lama saarin oo dambigeeda ay qiratay laakiin hore waxa u jiray Maxamed Ismaaciil oo kamid ahaa milkiilayaasha Empire Cuisine and Market oo bishii October 15 sanadkii 2024 12 sano oo xabsi ah lagu xukumay. waxa sidoo kale xigay Muqtaar Shariif oo isagana 210 bilood lagu xukumay bishii January 24 sanadkan 2025 ku dhawaad waa 17 sano iyo bar oo xabsi ah. marka waa xukunkii ugu dheeraa oo ilaa ay hadda lagu rido qof isagu kiiskan Feeding Our Future maxkamad loo soo taagay. marka ilaa ay hadda waxa la leeyahay kiiskan oo 70 qof lagu soo eedeeyay lacagtan 250 milyan ah inay lunsadeen 38 kamid ah ayaa dambigooda qirtay. 7 kamid ah maxkamad ayaa la saaray oo dambi ayaa lagu helay. 2 qofna waa tii dambi lagu waayay sidaan ognahay. marka 18 eedeysane ayaa ilaa ay hadda waxay yihiin maxkamad sugayaal. waxa sidoo kale jirta in Amy Back aan ognahay oo iyadoo Feeding Our Future madax ka ahayd in 19kii bishii Maaj ee saddexaad ee sanadkan lagu helay dhamaanba 7 dambi ee lagu soo eedeeyay iyo Salim Saciid oo isaguna maxkamadda lala saaray oo milkiilayaasha maqaayada Safari kamid ahaa oo 22kii dambi ee lagu soo eedeeyay isagana lagu helay. marka hadda guud ahaan waxa ayna kiiskan jirta in 4 qof oo Soomaali ah oo dambi lagu helay ay hadda xukun sugayayihiin oo wali aan la xukumin. waxa sidoo kale jira dad badan oo Soomaali ah oo iyaguna kiiskan ku eedeysnaa oo qaarkood dambigooda qirtay kuwana marqaati fur sameeyay oo iyaguna xukun sugayaal ah oo sugayo in xukunka laga qafiifiyo. marka waan arki doonaa halka ay arintan ku dhamaato laakiin kiiskan waxa uu u muuqdaa in hadda inta badan dadkii ay dambigooda qirteen maadaama 38 kamid ah ay dambigooda qirteen 18 oo kaliya ay hadda waxay yihiin dad maxkamad sugaya oo wali aan dambigooda qiran. marka waxyaabaha kale ee ka soo kordha haddii alla idmo waa idila soo socodsiin doonaa. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo.